بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. به نستعين ونستغفر ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد odayaasha halkan iskugu yimid salaadiinta bahda saxaafadda xildhibaanada siyaasiyiinta halkan iskugu yimid mudanayaasha iyo marwooyinka kulligii waa salaamadii waxaa idin salaamayaa salaamta iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. ama bacd waxaan halkan ku soo dhawaynayaa aniga shakhsiyan waxaan ku soo dhawaynayaa jananka hawshan oo culus aad u culus loo dhiibay oo hadduu eebba kuu roon yahay hawl aanan sahlanayn ay tahay inkastoo nin sargaala uu yahay nin sargaalana hawlahan qaarkiisa sidii biyo oo kale u cabbaa. marka maadaama ninkan uu nin janana yahay hadda ka hor intii uu joogay maxaakiimta uu ahaa gudoomiyaha maxkamadaha waxaan u malaynayaa inuu hawlo badan ayuu soo qabtay. waxaa ka mid ah inuu nabadeeyey militariga gudihiisa oo la waayey gabdhihii la dhacayay wixii suuqa luqa inuu nabadeeyey magaalada xamar wax allaala wixii militari ahaa oo dhibaato ku waday dalka ayaa sidaa ula socotiin ilaa xad ay gaartay nimanka la yidhaha xuquuqul insaanka inay soo gaareen ay soo dhexgaleen arrinta ay yidhaahdaan jananku waxyaabo badan ayuu sameeyey. markaad meel gaartana hay-adaha dibadda ku soo gala markaad meel gaarto Soomaali ay meel gaarto oo aad ku dhawaato meesha ugu sarreyso nabadda ah waxaa ku soo dhexgalaya hay-ado fara badan oo adiga aad maanta xisaabanayso. mungaab waxaa soo galay hay-ad badan oo soo galay inay ka joojiyaan arrimaha oo ku sameynaya cadaaladda dalka gudihiisa. nin mooye la yiraahdo anaga reer xamar ah wuxuu dhihi jiray nabad la tuuga nabad ma. marka maadaama ninkan uu nin nabad tuugay uusan ahayn aniga waxaan aaminsanahay 100% in uu hawshaas nin u qalma uu yahay nin hawshaas aanan waxbana ka reebanin. waxaad arkay doontaan xamar gudaheeda inay nabadu ay ka dhacdo haddii ay shacabkan la shaqeeyaan. waa inay shacabka Soomaaliyeed waa inay la shaqeeyaan jaran. waa in maanta wuxuu haystaa fursado fara badan ay ka mid tahay inuu haysto maxuu haytaa nabad sugidii inuu haysto maxuu haytaa booliiskii inuu haysto maxkamadiisii oo ninkii maanta dambi gala isla markiiba meesha lagu khaarijinayo oo aan lala sugaynin waqti badan aan la sugay. waxaana uu ballan qaaday inuu dego meesha la yidhaahdo warshada baasada inuu dego weli nin u bareera ma jiro. marka wuxuu ninka hadalladiisa waxaa ka mid ahay waraabo godkiisa loogu tago maadaama uu hadalladaas uu yidhi anaga waxaan aaminsanahay 21 sano dalkan maxamed siyaad barre ayaa haysta wuxuu ku hayay qorogaas caaradiisa ku hayay ninka kale uga fikir ma jiro. habarta joogta zaylac joogta hadday gafto warqad wareegtaa loo geynay. xilligan hadda aan taaganahay waa xilliga militariga hadda aan taaganahay ma aan xilliga shibilka ma aan xilliga Soomaaliya ee maanta ay marayso waa xilliga militariga. nimanka militariga waxaan ku boorinayaa meel kasta ay joogaan waa xilligoodii dagaal bay ku jiraan dalka dagaal buu ku jiraa dalka waa la baabi'iyey dalka waa la xasuuqay ururo diimeed aan jirin waxay yihiin aan aqoon waxay ka koobeen aan la aqoon leedahay shabaab ayaa dalkii oo dhan meel walba soo galay meel walba haysta oo aan wax ka xunnaana jirin. marka nimanka militariga ayaa dalkaas badbaadi kara waligoodna Soomaaliya militari baa badbaadi jiray. maanta waa inay dadka militariga waa inay dib iskugu noqdaan dagaalka maanta ay ku jiraan waa inay si sharaf leh si niyad leh si wadaneednimo ah sidii la arki jiray inay u qabtaan. waxaan leeyahay oo kaleeto oo aniga halkan aan ka leeyahay inkastoo suldaanku oo maanta oo hadalladayda oo maanta oo da'dayda banaanka u soo dhigay aanan jeclaysan uu yiri barqash ninka arka ninka ma yiri marka
waxaan kaleeto leeyahay nimayo waxaa idin leeyahay shalay maxamed siyaad baa wax ka sheegaysa oo intaan isku nimana cambuulo intaan wada cunno waxaad cun maxamed siyaad aan iska ridno war waa iska ridna waa garan meel buu ka baxay maxaa haysaan maanta su'aasha aad idin weydiinaya maxaa haysaan waxaad haysaan bal ii sheeg waxaad haysaan ma leh marka waxaan leeyahay war heestii hadda ugu dambaysa waxay ahayd ka tashada cadaawad ninka hadda heesta ugu dambaysay ka tashada cadaawad waa inaad ka tashataa shabaab hadda cadow kale aad leedahay ma leh waa inaad shabaab ka tashataa gudaha dalkana waxaa jooga gudaha dalka haddeetaa magaaladan Oslo aad joogto waxaa jooga runtaa idiin sheegaya annaga niman military aan waxyaabo badan oo aan idin balaarinaya magaaladan Oslo waxaa idin la jooga niman shabaab oo fara badan oo lacag aruuriya oo lacag u dira oo taageera ayaa jooga waxaan idin leeyahay nimankiinaan meesha joogow ogaada nimankaasi inaysan dalkii wax u wadin waa inaad ku qabataan magaaladan Oslo waxa jooga BSD niman leeyahay ayaa jooga farta laga saaray booliiska waa aniga taladaydu way meesha dul nabadeed baa joogtaa dul nabad sharci lahaa joogtaa waxyaabaha noocaasa dadka aruurina waa in faraha laga saara laana dalkii ayay baabiina ciyaalkoodii diraan lacagtoodii bixiyaan markii fasax aadan ayagay u tagaan ama ogaanina taas marka waxaan idin sheegayaa oo kale taxamulaad mugaab ninka la yiraahdo tarsanna waa nin soo qabtay hool aad iyo aad u weyn hawsha soo qabtana wallahan ku dhaartay waad aragteen xamaro lees cunayo lees baabiinayo ayuu waxaan ogeed ka sameeyay dariiqiye ka sameeyay wax walba ka sameeyay isbedel waa dhaca nabigeen ilaahayna subhanahu wa ta'ala oo na abuurtay wuxuu bila ambiyadiisu kala bedeli jiray min aadam ila muhammad wal soo bedel aadam waxa ku xigay fulaan aadam waxa ku xigay fulaan ila nabi muhammad aa soo gaarto waa sunna kawniya waa in lees bedelo inaad ka carooto ma حتى هذا نفتر قاعد حساب تنتو شل آدم عبد الله ما أنت كحيل عبد الرشيد بها كيكو سحيقة وحوها محايتة محمد سياد بوها ولا بدلايا لكن نيم والبوح وقت وين الشيء حنا ولا ترسم حنا ولا منقاب وقت دوين